شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. daawadayaal maalmahan ka dhiman bisha barakeysan ee ramadaan waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee laga qoro arrimaha ramadaanka iyo sidoo kale waxyaabaha xiisaha leh ee bisha barakeysan ee ramadaan ay warbaahinta iyo sidoo kale jaraa'idada caalamka ay ka qoraan. waxaan maanta idiin soo gudbin doonaa dowladda dalka Sacuudi Carabiya oo iyadu mamnuucday in salaadihii taraawiixda oo ay dadka si toos ah uga daawan jireen warbaahinta dalkaasi Sacuudiga in la joojiyay inta lagu guda jiro bishan barakeysan ee ramadaan. waxaa ciwaan looga dhigayaa oo ay saakay daawacayaan warbaahinta waddankaasi Sacuudiga iyo kuwa caalamka Sacuudiga oo mamnuucay in si live ah loo tabiyo salaadaha taraawiixda bisha barakeysan ee ramadaan. boqortooyada dalka Sacuudi Carabiya ayaa Arbacadii waxa ay soo saartay in gabi ahaanba la joojiyay in si toos ah loo soo tabiyo salaadaha taraawiixda iyada oo la soo marsiinayo warbaahinta gudaha ee waddankaasi Sacuudiga Carabiya bishan barakeysan ee ramadaan. wasaaradda arrimaha islaamka ee dalkaasi Sacuudiga ayaa waxa ay shaaci ka qaaday in masaajida iyo amiimada iyo sidoo kale kuwa ka aadimaba lagu wargeliyay in la adeegsan doonin kaamirooyinka masaajida ku yaala si loo soo duubo imaamyada iyo sidoo kale dadka tukanaya xilliga salaadahaasi waxaa loo diidayaa jiray in warbaahinta gudaha ay si toos ah u soo tabiyaan. arrintani ayaa waxaa sidoo kale jirta ayaa la jiray in ay jiri doonto in ay si aada isaga ictikaafi doonaan 2 sano kadib markii ay dadka laga mamnuucay inay ku ictikaafaan masaajida xarabka maadaama laga hortegayay cudurka COVID-19. imaamka masjidka ayaa mas-uul ka ah ayaa la jiray in loo ogolaado dadka inay ku ictikaafaan masaajida iyadoo la maraya ayaa la jiray kala fogaanshaha iyo sidoo kale in dadka xaaladahoodii la darso maadaama dad badan ay isugu imaanayaan salaada taraawiixda. sidoo kale waxaa la ilaalin doonaa nadaafadda masaajida. sidoo kale waxaa sidoo kale la ilaalin doonaa haweenka iyagu sidoo kale imaanaya iyo kuwa ka shaqeynaya gudaha masaajidka xarameynka. wasaaradda waxa ay dhammaanay ugu baaqday masaajida dalkaasi Sacuudi Carabiya in aysan jiri doonin wax tabarucaad maaliyadeed oo la aruurin doono inta bisha barakeysan ee ramadaan lagu guda jiro. waxaana jiri doonin ayaa la yiri mashaariicda afurinta oo lagu qabto meelaha bannaanka ah ee masaajida iyo goobaha kale. waxaana mas-uuliyaddaasi la hayaa la yiri qofka masaajidka imaamka ka ama mu'adinka. sidoo kale waxaa la dhowri doonaa nadaafadda masaajidka xilliga markii ay dadku ay ku afuraan masaajidkaasi si toos ah ayaa loo nadaafin doonaa. dhanka kale dowladda waddankaasi Sacuudi Carabiya ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay maxkamadeedii sare ay sheegtay in 29 bisha Shacbaan oo ku beegan Jimcahan soo socda kiisi kale in loo baahan yahay muslimiinta meel waliba ay ka joogaan wadamada caalamka in ay baadigoobaan bisha barakeysan ee ramadaan. warka ka soo baxay maxkamadda sare ee dalkaasi Sacuudi Carabiya ayaa waxa uu u dhignaa waxaa muhiim ah in muslimiinta meel waliba ay joogaan inay baadigoobaan bisha barakeysan ee ramadaan 29 Shacbaan oo ku astaysan Jimcahan kan kale ee soo socda maadaama la tilmaamayo in la kala saari doono in Shacbaan la kaamilayo ama la dhammaystirayo ama in bishu la arki doono oo ay sidaasi ay ku noqon doonto. dowladda Sacuudiga ayaa waxa ay ka mid tahay wadamada looga daydo meesha laga ogaado suurtagalnimada bisha barakeysan ee ramadaan inay dhalatay in kale. wadamada khaliijka iyo sidoo kale kuwo kale oo carbeed oo iyagu Afrikaan ah ayaa xiriir la leh dowladda waddankaasi Sacuudi Carabiya oo isku waqti ay soomaan. daawadayaal warbixinteena haddii aad ka heshay fadlan subscribe saar channelkeeni. waxaan idin soo gudbin doonaa maalmaha soo socda wararka bisha barakeysan ee ramadaanka la xiriira. aad ayaad u mahadsantihiin.